بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabin kamida barnaamijka faaqidaada wararka caalamka lafagurka diblomaasiyadda iyo taxliilinta amniga dowladaha Mareykanka iyo Iran ayaa isdhaafsaday hanjabaado aad u culus wararka soo baxaya Mareykanku waxa ay tilmaamayaan suurtagalnimada qorsheynta cunaqabatayn kale oo adag oo la saari karayo dowladda Iran halka wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran ay ku dhawaaqeen in tallaabo kasta oo caqabad ku noqon karaysa amniga iyo waliba madax banaanida wadanka Iran ee Mareykanku uu qaaday ay ka bixin doonaan jawaab aad u culus tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo gobolka bariga dhexe walaac weyn uu ka taagan yahay haddaba maxaa keenay hanjabaadahan maxayse Mareykanka uu qaadayaan tallaabooyin kale oo ka dhana wadanka Iran dhinaca kale qodobada aan idin haya waxa kamid ah dowladda Qatar oo ku dhawaaqday in wadankeeda uusan ka dhici doonin kulan foolka fool ah ama mid dadban oo u dhaxeeya dowladaha Mareykanka iyo Iran hasaatee ergada labada dal ka socota ee ku sugan magaalada Doha ay qorsheynayaan qaabab kale oo lagu abuuri karo jawi wada xaajoodka lagu amba qaadi karo haddaba muxuu Jared Kushner iyo Steve Witkoff ay ka dooneen magaalada Doha maxayse dowladda Iran wafuud ay u dirta halkaasi ka dooneen waxaan sidoo kale eegi doonaa maxaa laga yeelayaa 6 bilyan ee dollarka Mareykanka ee dowladda Qatar ay gacanta ku hayso wadanka Iran laga xayiray ma waxa la joogaa xilligii lacagtaasi la bixin lahaa barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa khiyaarta ay nala socotay isla wararka murahaasi la xiriira haddii aan sii eegona waxaa kamid ah dalka Ruushku iyo madaxweyne Vladimir Putin waxa ay markan bilaabeen inay indhaha ku hayaan qaaradda Afrika afar dal oo kale oo cusub oo wadamada reer galbeedku ay saameyn ku lahaayeen ayay markan Ruushku qorsheynayaan inay kala wareegaan xilli wadamada saaxil dalalka ku yaalay horey looga soo saaray Faransiiska iyo ciidamadii Mareykanka ee halkaasi joogay qaaradda Afrika markan ma waxay noqon rabtaa bariga dhaxada cusub mase waxa ay sidoo kale ahaan doontaa goobta ay ku loolamaan Ruushka iyo wadamada reer galbeedka maxaa lagu arkay qaaradda maxayse madaxda wadamadaasi ogeyn ee loolanka uu salka u yahay qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijka iyo lafagurka dhacdooyinka cusub ee hadda ka taagan caalamka khiyaarta ay nala socotay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo maasantiin marka la eego dhinacyada hadallada isweydaarsanaya oo Mareykanka iyo dowladda Iran warbaahinta reer galbeedka qaarkood waxa ay ku waramayaan suurtagalnimada cunaqabatayn kale oo cusub oo curyaamin doona madax banaanida iyo dhaqaalaha wadanka Iran si gaar ah meelaha markan laga yaabo in la bartilmaameedsado waxaa kamid ah ilaha dhaqaalaha uu shidaalka kamid yahay ee dowladda Tehran ay leedahay hasaatee arrimahan oo dhani waxay u muuqanayaan Mareykanka inuu abuurayo cadaadis kale oo dheeraad ah oo la saarayo dowladda Iran si loo muujiyo dagaalka wadankaasi in lagu curyaamiyay oo guud ahaanba la jaro dhaqaalihii lagu hormarinayay ciidamada ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda oo u babac dhigay kuwa Mareykanka dagaalada xoogga leh ee gobolkaasi bariga dhexe galgalay wargeyska caanka ah ee The Bloomberg ayaa ku waramaya marka la fiiriyo tallaabooyinka soo kordhaya ee isbedelada hadda muuqanaya in ay yihiin kuwa qatar ah oo dowladda Mareykanku ay tallaabooyin adag qaadi karayso wargeyska caanka ah ee The Bloomberg ayaa sheegay in cabsida ay iibsadayaasha caalamiga ah ka qabaan dib u soo celinta cunaqabataynta Mareykanku ay si weyn u weeqday baa la yidhi awoodda Iran ay ku doonayaan inay ku iibsan doonaan shidaalkooda isla markaana ay ku iibiyaan una dhoofiyaan wadamo fara badan oo caalamka sida uu sheegay xogayaha maaliyadda Mareykanka Iran waxay wali la kulmi doontaa baa la yidhi dhibaatooyin kale oo xoog leh oo dhaqaale Iran wali kuma guuleysan inay si caadi ah u iibiso shidaalkeeda maadaama dalal badan iyo shirkado ganacsi ay ka baqayaan in mar kale lagu soo rogo cunaqabateen haddii ay la macaamilaan Tehran warbixinta ayaa intaa ku dartay in Shiinaha uu yahay dalalka kaliya ee wali sida joogtada u iibsada shidaalka Iran maadaama uu xiriir ganacsi la lahaa Tehran xitaa ka hor inta aan la adkeyn baa la yidhi cunaqabataynta wadankaasi lagu soo rogay
sababtoo ah xadidaadaasi ayaa tirada yar ee iibsadayaasha shidaalka Iran ayaa lagu iibiyaa baa layidhi qiimo ka hooseeya qiimaha guud ee shidaalka caalamiga ah si loo soo jeeto macaamiisha diyaar u ah in ay qaataan qatarta la xiriirta cunaqabataynta. arrintan ayaa waxay tahay mid dowladda Mareykanku ay dareemayso caqabad weyn inay uga imaanayso dhibaatooyinka dagaalada iyo waliba cunaqabataynta dowladda Iran lagu soo rogay. dhinaca kale dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa ku dhawaaqday tallaabo kasta oo Mareykanku uu qaado oo saameyn ku yeelanaya heshiiska is-afgaradka ah ee gobolka Bariga Dhexe laga gaaray ee ku saabsan 60 maalin ee xabad joojinta inay ka bixin doonaan tallaabo iyo jawaab aad u adag. warowsiyada ayaa afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran waxa uu ku tilmaamay goodinta Washington ka soo baxaysa inaysan ahayn mid saameyn gaar ah ku yeelan karta wadankaasi isla markaana aan Tehran lagu cabsin gelin karin dagaal oo ay diyaar u tahay jawaab degdeg ah inay bixiyaan. waxa uu sidoo kale qeexay ciidamada wadanka Iran inay u diyaarsan yihiin jawaab kasta oo Mareykanka ka timaada in ay bixiyaan isla markaana ay si aad ah ugu wajahaan gobolka Bariga Dhexe. tani waxay ka dhigan tahay wali nabadda gobolku inay tahay mid aan cagab badan ku taagnayn oo dhinacyadu ay mar kale fooda isgelin karaan. dowladda Iran ayaa salaasadii ku dhawaaqday inay si degdeg ah uga jawaabi doonto tallaabo kasta oo Mareykanka uu ku jabiyo baa layidhi heshiiska is-afgaradka ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Bariga Dhexe kadib markii labada dhinac ay isweydaarsadeen weerar dhamaadkii toddobaadkan. afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee dowladda Iran Ismaaciil Baqaayi oo shir jaraa'id qabtay waxa uu yidhi tallaabo kasta jawaab la'aan kama ahaan doonto Mareykanka haddii ay muujiyaan ciidamada qalabka sida ee Iran weerar kasta oo lagu qaado Jamhuuriyadda Islaamiga waxay si degdeg ah uga noqon doonaa mid jawaab looga bixiyo oo aan la dhaafi doonin. waxa uu sidoo kale sheegay in tallaabooyinka noocan ah ay yihiin jabinta qodobka koowaad ee heshiiska is-afgaradka isagoo ka digay haddii jabintaasi ay sii socoto inay adkaan doonto sii wadida wada socodka iyo waliba wada xaajoodka taas oo uu ku tilmaamay cidda faa'iidada ugu ballaaran ka qabta inay tahay dowladda Washington. weeraradii ugu horeeya tan iyo heshiiska ayaa noqonaya kuwa aad u abuuray moraal dilaac iyo niyad jab xoog leh oo soo gaaray dowladihii dhexdhexaadinta ka waday dhinacyadan oo doonayay in ay guulo ballaaran gaaraan. heshiiska is-afgaradka ayaa wajahaya imtixaankiisii ugu horeeya kadib markii Mareykanka iyo Iran ay isweydaarsadeen weerar military dhamaadkii toddobaadkan kuwaasi oo ah kii ugu horeeya tan iyo markii heshiiska la saxiixay 17 Juun 2026. warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in Tehran ay weerartay baa layidhi bartilmaameedyo Mareykan oo ku yaala dalalka Khaliijka iyadoo ku tilmaamay jawaabta ay ka bixiyeen duqeymaha Mareykanka uu ku qaaday gudaha wadanka Iran. dhinaca kale Mareykanka ayaa ku eedeeyay Tehran inay weerartay mid ka mid ah maraakiibta ganacsiga ee saameynta weyn ku leh gobolka Bariga Dhexe. maanta warbaahinta iyo waliba dadka wax taxliiliya waxay indhaha ku hayeen wadanka Qatar oo ay si wada jir u gaareen wafuud kala duwan oo ka socotay dowladaha Mareykanka iyo Iran. hase haatee war ka soo baxay Dooxa oo uu sheegay afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee boqortooyada Qatar ayaa waxa uu ku tilmaamay in wadankaasi hadda aysan ka socon wax la xiriira wada xaajood iyo waliba dhinacyadu inay soo fadhiisan doonaan. ma qaban doono wada xaajood toos ah iyo mid dadban. hase haatee wafuudda Mareykanka iyo Iran ee wadankeena ku wada sugan mid kasta waxa uu doonayaa sidii dhinaca dhexdhexaadayaasha ugu gudbin lahaa waxyaabo isaga gooni u ah. arrintaas aad indhaha loogu hayo waxaa ka mid ah 60 bilyan ee dollar ee dowladda Qatar ay gacanta ku hayso oo ka mid ahaa heshiiskii 2023 la gaaray kaasoo ujeedadiisu ahayd wadanka Iran in cunaqabataynta laga qafiifiyo dhaqaalaha caalamka oo ka haya ee xayiraana lagu wareejiyo. toddobaadkan madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa ku dhawaaqay wadanka Qatar in uu bixin doono ilaa 6 bilyan oo ka mid ah lacagaha xayiran ee dowladda Iran. lacagahaas ayaa ujeedadu ahayd marka ugu horeysay in dhaqaalahoodaasi lagu iibiyo raashin iyo waxyaabo kale. hase haatee dowladda Iran
ayaa u muuqata gaashaanka inay u daruurtay afayeenka wasaaradda amuraha dibadda wadanka Qatar Majid Al-Ansari ayaa sheegay in ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo waliba wiilka sodoga uu yahay Trump ee Jared Kushner ay Doha u yimaadeen inay kula kulmaan baaliiri dhaxdhaxaadayaasha Qatar si ay uga wada hadlaan arrimo dhowr ah oo gobolka quseeya oo ay ku jiraan wada hadallada la xiriira Iran iyo waliba Lebanon waxa uu cadeeyay sida ay xogtu sheegayaan in aanu jirin kulan heer sare ah ama kulan toos ah oo dhaxmari doona wafuudda Mareykanka iyo Iran maalmaha soo aadan arrinta lacagaha xayiran ayuu sidoo kale faahfaahin ka bixiyay Qatar waxay sidoo kale xaqiijisay in 6 bilyan oo kamid ah hantida Iran ay leedahay oo xayiran aan wali lagu wareejin Tehran lacagtaasi ayaa ku jirtay heshiiskii sanadkii 2023 waxana loogu talagalay in lagu iibiyo oo kaliya badeecooyinka bani'aadanimada arrinta Hormuz iyo waliba maraakiibta caalamiga ee halkaasi gooshaya ayuu ka hadlay Dr. Majid Al-Ansari oo ah afayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee Qatar ana uu qeexay in dowladaha Carabtu ay Qatar ugu horeysa ay door bidayaan marin xasilooni ah Qatar waxay sheegtay inay si dhow ula shaqeynayso Oman si ay u sugto amniga maraakiibta maraya marin biyoodka Hormuz iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo xorriyadda maraakiibta iyo nadiifinta minooyinka badda afayeenku waxa uu carabka ku adkeeyay in xorriyadda maraakiibtu ay tahay xuquuqda ay leeyihiin dhammaan wadamada qaliijka isla markaana aysan aqbali karin in marin biyoodka uu noqdo mid xiran oo cabsi gelinaya dowladaha waaweyn Iran waxay sidoo kale ka hadashay arrinta faragelinta shisheeye ee gobolka tan oo noqonaysa mar kale Tehran inay muujiso awoodeeda ay ku leedahay gobolkan iyo waliba in dowladaha halkan jooga aanay dhinac kale oo soo waarida awoodiisa uusan ku sugo garin nabadgelyada deegaanka dhankiisa afayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran Ismaaciil Baqaayi ayaa sheegay in wafdiga Iran ee Doha uu kula kulmi doono baaliiri mas'uuliyiinta Qatar si ay uga wada hadlaan arrinta lacagaha xayiran Baqaayi waxa uu sidoo kale sheegay in aanu jirin wax qorshe ah oo lagula kulmayo mas'uuliyiinta Mareykanka oo heer kasta maalmaha soo socda ay nagu soo aadan intaasi isagoo ku daray faragelin kasta oo shisheeye oo ka dhacdo marin biyoodka Hormuz inay sii murjin doonto xaaladda oo laga cabsi qabaya inay faraha ka sii baxaan waxa uu xusay in Iran ay wali ka go'an tahay fulinta qodobka heshiiska isafgaradka ee quseeya Hormuz haddii dhinaca kale oo isna u hoggaansamo baaliiri waajibaadkiisa wada hadallada ayaa wali soconaya inkastoo aanay jirin baaliiri jiri doonin kulamo toos ah wafuudda Mareykanka iyo Iran ayaa la filayaa in si gooni ah ula kulmaan dhaxdhaxaadayaasha Qatar iyo Pakistan arbacada soo socota iyadoo la isku adkeynayo sii wadida dadaalada diblomaasiyadda ee lagu xalinayo khilaafaadka gaar ahaan kuwa la xiriira barnaamijka Iran iyo arrimaha gobolka dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulamada ka dhacaya Doha ay laga yaabo inay noqdaan kuwa muhiim ah halka madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian uu xaqiijiyay in Tehran aysan fulin doonin heshiis kasta oo Mareykanka uu soo bandhigo haddii uu ka hor imaanayo danaha iyo masiirka qarannimo ee wadankaasi Iran dhinaca kale dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ayaa maalinta ka dambaysa ku sii dhawaanaysa siyaasadda wadanka Iran waxana ay Tehran ka raadinaysaa saaxiibtinimo istiraatiiji ah iyadoo maanta dib loo furay duulimaadyadii labada dhinac u dhaxeeya Abu Dhabi iyo waliba magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran xilli dowladda Iran ay si weyn u garaacday xilligii dagaalkii 40 maalin soconayay ee bartamihii sanadkan ka dhacay gobolka Bariga Dhexe dhinaca kale isla wararku waxay tilmaamayaan in Iran ay hore u siisay Imaaraadku hore u siiyay wadanka Iran lacag gaaraysa 3 bilyan oo dollarka Mareykanka inkastoo Abu Dhabi ay warkaasi beeniyeen haddana warar soo baxaya waxay tilmaamayeen in Israel iyo waliba dowladdaasi Imaaraadku ay ku kala dhaqaaqeen arrintaasi wargeyska The New York Times ayaa sheegay in laba shirkadood oo diyaaradood oo Iran ay leedahay ay labadii maalmood ee la soo dhaafay ay dib u bilaabeen duulimaadyadii u dhaxeeyay Dubai iyo Tehran taas oo calaamada soo laabashadu ay noqonayso mid muujinaysa in hawada labada dhinac ay hadda bilaabeen inay si toos ah u shaqeeyaan
sida warbixintu ay sheegtay duulimaadyada ayaa noqday kuwii ugu horeeyay oo si toos ah uga dhex socda Imaaraadka iyo waliba Iiraan waxaana tani ay noqonaysaa isku soo dhawaashiyaha dhinacyadan oo bari ahaa saaxiibo iska soo horjeeda ama cadow si aad isku garaacaya dowladda Ruushku waxa ay bilowday dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ay ku saameynayso kahortagga istiraatiijiyadda reer galbeedka ee qaaradda Afrika madaxweyne Vladimir Putin ayaa qaaday siyaasad ku dhisan baa yidhi soo dhaweynta qaaradda Afrika iyo waliba in uu la sameeyo xiriiro suke maadaama wadamada qaaradan madow ku yaala ay u muuqanayaan kuwa ay saameyn ku yeesheen siyaasadda taabica ah ee reer galbeedka wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu qorsheynayo in uu furo safaarado iyo wakiilo diblomaasiyadeed oo cusub oo ku yaala dalal Afrikaana oo 4 dal gaaraya si loo xoojiyo xiriirka Moscow iyo dalalka qaaradu inay noqdaan kuwa kor u sii kacaya Lavrov oo siyaasi gaamuray oo Ruushiyana kana mid ah saaxiibada gacanta midig ee madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in marxaladda soo socota la bilaabi doono howlaha diblomaasiyadda ee u dhaxeeya dalalka Gambia, Liberia, Togo iyo waliba jasiiradda Comoros waxaa hadalkan uu ka jeediyay kulan ay yeesheen golaha ganacsiga ee wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Ruushka safaarada kale ayaa horey loo furay sanadkii 2025 sida Lavrov uu sheegay meelaha laga furay waxaa ka mid ah Niger, Sierra Leone iyo Koonfurta Suudaan sidoo kale dowladda Ruushka ayaa sameynaysa waji cusub oo gaar ah oo iskaashi ah oo kala dhaxeeya xaaladan xoojinta saameynta Ruushka waxa ay ka dhigan tahay mid aad u taabanaysa wadamada reer galbeedka wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegtay ballaarinta joogitaanka diblomaasiyadeed ee Ruushku inay qayb muhiim ah ka tahay qorshaha lagu horumarinayo xiriirka siyaasadeed dhaqaale iyo amni ee Moscow ay la leedahay qaaradda Afrika hadda waxa qaaradda Afrika ka shaqeynaya 45 safaaradood oo Ruushku uu leeyahay iyadoo Moscow ay sii wado dadaalada ay ku doonayso inay dib ugu soo ceshato saameynteeda iyo xiriirkeeda taariikhiga ah ee qaaradan ay la leedahay tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladihii reer galbeedka ee Faransiiska uu ka mid ahaa wadamada saaxil laga raacday iyo halkaasi oo badiil ka yimaadana oo wadanka Ruushka noqday afar kale oo dal oo lala wareego macnaheedu waxay ka mid tahay in Ruushka uu duulaan diblomaasiyadeed oo dadban uu ku hayo wadamada reer galbeedka si uu uga barasaaro qaybo ka mid ah qaaradan Afrika ee qaniga ah